madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana laga sugayaa maalmaha soo socda kahor 20ka bishan inuu ku dhawaaqo gogasha wadahadalka mucaaradka iyo dawladda. waxa uu sheegi doonaa madaxweynaha goobta shirka uu ka dhici doono iyo cid walba oo ka qayb gali karta shirkaas in shirka uu yahay mid isku furan oo guud ahaan ay ka qayb galayaan dhammaan basaamileeda siyaasadda dalka ee dalkii dibadiisa ku nool. sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa ajandaha shirkaasi loogu hadlayo ee gogasha ee Villa Soomaaliya ay ku dhawaaqi doonto. mucaaradka ayaana waxay diidan yihiin in shirka uu madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqo isla markaana uu goob gaar ah oo dawladda Soomaaliya gacanta ay ku hayso in lagu qabto sabab la xiriira khilaafka Puntland iyo Jubbaland oo mideysan iyo dawladda Soomaaliya. waxa kale ay diidi doonaan in ay yimaadaan goobta aysan ku kalsooni qabin sida la sheegay, waxaana la doonayaan in lagu qabto meel ka bannaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si dawlad goboleedyada kale sida Puntland iyo Jubbaland ay shirka ay kaga qayb galaan. wadahadalka ayaa la sheegay inuu noqon doono mid u dhaxeeya dawladda Soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo golaha mustaqbalka qaranka ee uu hogaamiyo Shariif Sheekh Axmed. madaxweynaha Soomaaliya iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa dhawaan kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyagoona ka hadlay khilaafka dhexdooda iyo sida loo xalin karo tabashooyinka xilligan ay qabaan qaar ka mid ah madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dalka ka jira.